السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن داوضي الميل والبؤ جوكتان با وضبضا ورركنا كمغلي دونتانا وحاكمدا حالده وقدم بيه دالك إيتوبيا يدقالدا حقان يكسعدا دولاد كان مقالدا كومبولجا دولاد فدرالك إيتوبيا ومانتا دقال حقان هالكاسي كوقاتي أيضا لتوشيغا يإني قدد كالاسكو قداتي حقاقا تيبي ألفنا مانتا أي لكل من دبر جبعادو بدن sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay qabsashadii TPLF qabsashada magaalada Dessie ee caasimadda gobolka Wollo in aynan ahayn TPLF awoodaha iyadu la timi ama inayna ku qabsan maskaxay TPLF la timid ay ka qayb qaateen ciidamo shisheeye sida uu ku tilmaamay ciidamo cadaan ah iyo ciidamo Afrikaan oo ka socda qaaradani Afrika hase yeeshee dadka Ethiopiaanka ayaa waxay isweydiin sida ay ku dhacday inay dalka Ethiopia ay lugta soo galiyaan ciidamo shisheeye oo cadaan ah ama Afrikaan ah iyo meesha ay ka soo galeen ayaa maanta su'aalaha ugu badan ay yihiin qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamid ah xogaga TPLF iyo jamhadda OLA ee xoreynta Oromiya ayaa maanta waxay gaadheen heshiis saddex geesood ah oo ah in dawladda federaalka Ethiopia gabi ahaanba la rido bilaa shuruudna lagula dagaalamo ayna inta ka sokaysana aan laga wada hadlin xaaladda dalka Ethiopia markay dawladdaasi dhacday kadib laga wada hadli doona waxyaalaha ajendayaasha iyo waxyaalaha ka dhaxeeya jamhadahaasi xogan ee dagaalka kula jira dawladda federaalka Ethiopia sidoo kale shacabka Addis Ababa ayaa waxay sheegeen inay soo wajahday cabsidii aad ugu xumayd maadaama ay dawladda federaalku ku dhawaaqday in dhalinyarada hubka loo qabiyo ay jiraan dhalinyaro tuugaha oo dadkaasi gaadma xolahooda ugu dhaca oo qoryahana ku heli kara si fudud ayagoo arrintaasi ay cajaa'ib cabsi aad u badan ka abuurtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia sidoo kale dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa doorashadii dib loogu noqday ugu yaraan laba magaalo sidoo kale magaalada Jigjiga iyo degmada Mayumuluq ee gobolka Erar ayaa lagu noqday doorashooyinka ka dhacday ee guddiga doorashooyinka heer federaal ay ku tilmaameen wax aan waxba ka jirin ayadoo lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqi ugu badnaa ka dhacay magaalada Jigjiga sidoo kale loona diiday xubnaha ka socday guddiga doorashooyinka heer sare oo ka qayb qaadan lahaa doorashooyinka qaab dhismeedka iyo nooca ay u socdaan loo diiday in arrimahaas tagaan oo halkaasi lagu eedeeyay inuu musuqmaasuqi ugu badnaa abid ka dhacay sidoo kale degmada Mayumuluq ee gobolka Erar ayaa waxaa la sheegay tirada shacabka coday iyo inayna ku ruus lahayn halkaasna in arrin cajiib ah ka dhacday qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegantahay 2 bisha 11aad 2022 haddaynu u guda galo wararkeena oo faahfaahsan dagaalkii ugu xumaa ayaa waxa uu ka socdaa duleedka magaalada Kombolja halkaas oo la isku yahay godadka la isku wadatay dawladda federaalku saaga ay halkaas ku qaaday madaaficdii ugu cuslaa ay ku garaaday ciidamo lagu hanay halkaas ka howlgelisay hase yeeshee xogaga TPLF ayaa dhulka waxay ka sameeyeen difaacyo waaweyn ayagoo ciidanka federaalku ay la kulmeen cajiib hubkii nooci ugu dambeeyay loo isticmaalay dagaalka halkaas ka socda ayaa lagu macneeyay inuu yahay dagaalkii kala baxa hadday ciidanka ay dawladda federaalku halkaas ka howlgelisay amaanta guusha gaari waayeen xogaga TPLFna magaalooyinkaas dib looga saari waayo waxay cadeynaysaa TPLF inay dagaalka sina wadi karto ajidaha ujeedada ay leedahay gaari doonto ciidanka federaalka Ethiopia ayaa lagu eedeeyay inay dagaalka daacad ka ahayn awoodna ay u waayeen ay xoogga TPLF kula dagaalamaan hase yeeshee ciidanka federaalka ayaa waxaa la sheegay in xoogga TPLF ay qayb hoose kala shaqeeyaan jaranaallada dagaalka hagayana qaybna xaqan ka jiraan gamna xaqan ka jiraan dagaalkuna uu soo ku xumaaday xoogga TPLFna awood ugu badan gaadheen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa meesha waxa uu ka saaray inay TPLF qabsadeen dhul muhiim ah ay dawladdiisana cabsi gelin ama dawladdiisu ay khatar ku jirto asagoo sheegay inuu dagaalkaasi ay ka qayb qaateen ciidamo shisheeye oo cadaan iyo ciidamo kale oo Afrikaan ah ee ka qayb qaateen TPLFna ay u fududeeyeen inay dhul badan isku sii ballaadhiso dagaalka u dhaxeeya TPLF iyo dawladda federaalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay irka isku shisheeyay ayadoo TPLF gaadhay heer ay ku gorgortantay inayna dawladda federaalka heshiis la geli karin wax wada hadalana ayna gelin ilaa ay dagaalka guul ka gaadho ama ay soo afjarto dagaalka ay kula jirta dawladda federaalka Ethiopia shacabka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa ku nool ayaa waxay sheegeen TPLF inaan waqtigan xiise loo qabin nabarradii boogiha ay geysatay TPLFna inay wali ka jiraan dalka Ethiopia dhaawacyadii ay geysatayna wali dadkii ay geysteen inuu bogsoonin hase yeeshee caalamka iyo siyaasiyiinta madaxa bannaan ayaa waxay sheegayaan inay qoomiyadda Oromada ama jamhadda OLA ay TPLF isku horwada rumuudka shacabka Ethiopia laga gadayo inay TPLF dib soo laabatana ay tahay ujeedada OLA
sidoo kale jamhadda xoreynta ola ayaa maanta mar ay warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay dagaalka lagula jiro dawladda federaalka inuu yahay dagaal waajiba ayna marna ola gorgortan ka galaynin dawladda federaalka in la heshiiyo ola iyo TPLF ayaa waxaa moodaa hadda inay isgarab si weyn galeen awoodii ugu badnaana ay soo bandhigeen maadaama ay jamhadda TPLF ay qabsatay magaalada Desi oo xad leh qoomiyadda Oromada ama dhulka Oromada olana ay ka howlgashay dhulka Oromada warbaahinta madaxa banaan ama warbaahin laga leeyahay dalal shisheeye oo ka howlgasha gobolka Oromiya ama si dhuubaala ka howlgasha gobolka Oromiya ayaa waxay sheegtay in ay la kulantay jamhadda ola oo tababar ciidan ka samaysanaysa xadka u dhaxeeya dalka Kenya iyo Ethiopia jamhadda ayaa lagu sheegay awoodii ugu badnayd halkaasi inay ku soo bandhigtay iyadoo ugu yaraan 1000 askari halka tababar u soo xidhay ciidamada tababarka loo xidhayna ay ku dhaaranayaan inay Dr. Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisa meesha ka saari doonaan sidoo kale dalka Ethiopia waxaa ka jira jamhado badan oo qoomiyado badan ka kala socda ayagoo halkaasi ay heshiisyo ku wada galayaan in dawladda federaalka la rido gabi ahaanna saaxadda siyaasadda laga saaro dalka Ethiopia meel kale loo jeehayo hadda waxa ugu awoodda badan xoogaga TPLF ee dawladda federaalka awoodii ugu badnayd ay saarayso ayadoo halkaasi dawladdu kala kulmaysa culaysyo aad u waaweyn dalalka caawiya TPLF ama dawladda federaalku ku eedeysa ayaa waxaa ka mid ah dalalka Mareykanka midowga Yurub dawladda federaalka Ethiopia ayaa in badan waxay ku heysay dalka Mareykanka inuu xagal daacinayo xoogaga TPLF una kala shaqeynayo dhanka satellite-ka iyo hawada iyo isgaarsiinta hase yeeshee xoogaga TPLF ayaa waxay ku doodayaan inay arrintaas khibradooda iyo maskaxdooda ay tahay dagaalka ay dawladda federaalka kaga guuleysteen dawladda federaalkana ay tahay in la rido oo waajib ay tahay xoogaga TPLF ayaa waxay ku doodayaan dagaalka ujeedadiisu inay tahay in la badbaadiyo shacabka qoomiyadda Tigreega oo Dr. Abiy Ahmed ay ku tilmaameen inuu ku dhaartay inuu dabargoyn doono Tigray aan dib dambana loo maqli doonin ayaguna ay u taagan yihiin xorinta shacabka Tigreega ama badbaadinta qoomiyadda Tigreega qoomiyadda Tigreega oo ku jirta qoomiyadaha ugu tirada yar dalka Ethiopia ayaa baryahan daba waxay caan ka noqotay qaaradani Afrika ayadoo dadweynaha markay ay sheekaysanayaan ay ka wada hadlayaan oo TPLF xaggay soo gaadhay iyo dawladda federaalka xaggay kala marayaan hase yeeshee Tigreega ayaa waxaa moodaa lafkunta gashay inay ku noqdeen Dr. Abiy Ahmed kooxaha TPLF ama xoogaga TPLF ayaa waxay ku horeeyeen xagga isgaarsiinta iyo propagandada dawladda federaalka loo gudbiyo ayagoo la sheegay inay adeegtaan arrimaha dawladda xaggeeda ah ama siro badan oo dawladdu ay leedahay ee bannaanka markasta soo dhigan inta badan ay la shaqeeyaan xoogag qarsoon oo la soo saari karin dawladda federaalkuna ay ogaan karin hase yeeshee TPLF dhankeeda u janjeera saraakiisha ciidanka federaalka ayaa la sheegay inay xoogaga TPLF ay ku shubteen waqtiga ay dalka ka baxayeen ayadoo Dr. Abiy Ahmed xubnaha uu ku tumayay inay TPLF ay u geysatay dhibaatooyin badan ama ay dhaxdooda wax qolaad ay ka jirto uu hoggaanka ugu dhigay ciidanka federaalka si ay u hoggaamiyaan qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doorashadii dawlad deegaanka Soomaalida ka dhacday bishii aynu soo dhaafay 30keedii ayaa la sheegay inay degmada Jigjiga iyo Moyo-Baluq oo ka tirsan gobolka Eran gabi ahaanba guddiga doorashadaasi ay laaleen xildhibaanadii ka soo baxayay 7 xildhibaan ee ka soo baxayay magaalada Jigjiga iyo 3 degmada Moyo-Baluq gabi ahaanba ay siyaasadda bannaanka ka joogi doonaan ilaa ay doorashadaasi lagu noqdo guddiga doorashooyinka ayaa waxay ku eedeeyeen xisbigii dawlad deegaanka Soomaalida ee doorashada ka qabtay magaalada Jigjiga inay u diideen kormeerayaashii doorashooyinka inay tagaan goobaha ay doorashada ku dhacaysay magaalada Jigjiga aan arrintan ahayn arrin lagu qanci karo siyaasiyiinta ama xubnihii tartamayana ayna cadaalad halkaasi keenin sida liajliga doorashadaasi gabi ahaanba saaxadda looga saaray sidoo kale degmada Moyo-Baluq ee gobolka Eran ayaa waxaa la sheegay shacabka ka codeynaya iyo kuuradu inay isyeelan weyday aroo meeshaas musuqmaasuqii abid ugu badnaa ku dhacay 3 xubnood halkaasi ka soo baxayna ay guryahooda iska joogi doonaan ilaa ay doorasho dib loogu noqdo salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh tan iyo kulanti dambe wacan salaamullahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh